السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha. maanta barnaamijkeena waxaan ku falaqayn doonaa kulamadii xiisaha badnaa ee xalal la ciyaaray. waxaa xalal la ciyaaray laba kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League waxaana wada ciyaaray kooxda kubadda cagta Newcastle United oo soo dhaweeyday kooxda kubadda cagta West Ham United, waxaana 4-2 guusha ku raacday kooxda kubadda cagta West Ham United, halka kulan la wada sugayeen oo dhexmaray kooxaha kubadda cagta Tottenham iyo kooxda kubadda cagta Manchester City. Tottenham ayaa xalay ciyaaraysay qaab difaac iyo counter attack iyadoo 1-0 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Manchester City, waxaana xalay kulankaas isha lagu hayay Grealish oo kooxda kubadda cagta Manchester City ay ka soo iibsatay kooxda Aston Villa in ka badan 100 milyan. Grealish ayaa soo bandhigay ciyaar cajiib ah walow uusan naqan sidii ay rabtay kooxda kubadda cagta Manchester City iyo taageerayaasheeda. sidoo kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan La Liga waxaana wada ciyaaray kooxda Celta Vigo oo soo dhaweysay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ku adkaatay 2-1 waxaana halkaas guusha ku raacday kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. sidoo kale waxaa xal la wada sugayay kulan xiiso badan ee dhexmaray kooxaha Barcelona iyo kooxda kubadda cagta Real Sociedad. kooxda Barcelona ayaa xal ciyaartay iyadoo Messi la'aan ah waxayna xalay ku soo gashay shax ah 4-3 waxaana daafac ciyaaraya Desti, Garcia, Busquets iyo Alaba, halka dhex ay ciyaarayeen De Jong, Busquets iyo Pedri, halka weerarka ay keensatay Griezmann, Memphis Depay iyo Braithwaite. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa goolka koowaad heshay daqiiqadii 19aad waxaana gool madax oo qurux badan dhaliyay Piqué oo caawin ka helay wariyanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Memphis Depay, halka daqiiqadii 45aad uu dhaliyay goolka labaad Braithwaite isagoo raacsiistay daqiiqadii 59aad. kooxda Real Sociedad oo muujisay ciyaar cajiib ah qaybtii dambe ayaa daqiiqadii 82 iyo 85aad keensatay 2 gool oo cajiib ah, waxaana quusiyay markii dambe ciyaaryahanka dhexda uga ciyaara kooxda kubadda cagta Barcelona oo bedel ku soo galay Sergio Roberto oo dhaliyay daqiiqadii 91aad, waxaana halkaas ku adkaaday kooxda Barcelona oo ku adkaata 4-2. waxaa kaloo la ciyaaray kulan ka tirsan La Liga waxaana wada ciyaaray Sevilla iyo Real Falcao waxaana 3-0 ku adkaatay kooxda Sevilla. waxaan halkaas ku soo koobayaa barnaamijkeena falaqaynta kulamadii xalal la ciyaaray. waa anigoo Maxamed Cabdullaahi Geesi oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddii aad ka heshay barnaamijkeena fadlan subscribe, like iyo share hanaga xasin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.